bandhig qurux badan haddii la helaa qiimo badan waddamadii aan soo marnay run ahaantii way tartamayeen laakiinse waxaan rajaynayaa inay tani ka sii badiso haddii ilaahay helaa Hey, what's up, Hamdi? What's up, Oda Shirba? هذا أمك شهيستو صوت صار يدلو. Hester? أمك لمية وحلي هذا صور ماشي. Oh, can I hear it? Oh yeah, what? Let's go. كسر كبح. هيا دلو. كسر ولا what do you do? Video show. Please share, like, comments, and subscribe. Thank you. شعيك قبيو بيو نصيب قدر باجيو قيمات كل هاي دكتيدا حسوسي قاليا قيمات كل هاي دكتيدا حسوسي قاليا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن مانتا عن سود ويننا فنان كنوين نمعان عبد الرحمن نمعان هلاع دمان reer Sweden hadaan nahay maanta waxaan soo dhaweynaynaa walaalkeen marti inoo ah waxa inoo jooga fanaaniin far badan waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaankeena Cabdiqaadir ku soo dhawow waa dhawahay waxa sharaf noo ah anagoo reer Sweden ah reer Stockholm ah inaan maanta ku soo dhaweyno halyeegeena weyn fanaankeenna weyn نمعان عبد الرحمن حسن magaco dhan waan garanayaa ku soo dhawow Sweden aniga iyo reerkayga iyo ehelkayga iyo dad la jecel yahay oo dhan baa magaalada ku sugaya oo runtii ku soo dhaweynaya Soomaali weyn oo dhan baa ku taagan oo runtii ku hambalyeynaysa fanaan iyo suugaannimo ka sokow mas'uul baad tahay agaasime howladeena aan jecelnahay waa bari marka magac weyn weeyo nagu weyn anaga qaatasan dadkeenii ku soo koray howlada waa bari markay ahaayeen howlada aad iyo wadanka loo wada qadariyo heerkaas inaad gaarsiisaan rajaynayna oo aad meesha aad lagu dhiibay ka soo dhalaasho dhalinyaro maanta runtii aad iyo loo jecel yahay marka ku soo dhawow Sweden ku soo dhawow Stockholm waxaan malaynayaa aan u malayn doonaa dijozuwen way u raaci doonaa inay noqon doonto the hit meesha ugu fiican oo aad martay tuurkan inay Stockholm noqoto marka soo dhawow aad iyo aad baan horta walaalka u salaamayaa nimcaan cabdiraxmaan xasan nimcaan hilaac nimcaan annagu dee laba qof oo walaalaa oo in fara badan walaalaa baanay rag fara badan oo ugu horeeyo Axmed Weli Ibraahim Maxamuud Fadle ayaan maanta halkan uga mahad celinayaa ninkan aad arkaysaan dhiig rag baa ku jira ninkan nimcaan cabdiraxmaan marka dhuuntiisa laga imaado aniga iyo isagaba rag baa dhiigoodii ugu jira waliba ninka Axmed Weli la yiraahdo kow ha ka noqdo magaca labaadna uu xidigaha geeska yahay waan ku faraxsanahay in fanaaniin ka soo baxday magaca xidigaha geesku ay noqdaan kuwa ugu saameynta badan bulshada maanta la joogo sababtay doonaha ugu soo waliba nimcaan oo agaasima ah oo mas'uulka ugu sareeyo fanka Soomaalida maanta aynan barbar taaganahay oo halku shalay taagnaa intuu ka kacay uu halka taagay waa magaca fankana sharaf bay u tahay aniga iyo in kale oo isaga ay saaxiib yihiin oo yabaal fara badan isku leeyihiin sharaf bay u tahay maanta halka Axmed Weli baan ka salaamaynaa nimcaan waan salaamayaa aniga nimcaan fankaygu qayb weyn ku leeyahay anigu dadka ma baranay isaga dadkay baray waa been anigu dadka fanaanka ayaa abwaanka dadka bara
annagu waxun baan qornaa nimankaa dhuunta fiican baan u dhiibnaa dabadeedna wixii bay bulshada gaarsiiyaan dadna hadhown baan noqonnaa ninkii u dhiibay nimcaan iyo biike iyo mursal iyo nimankaa wuxu dhiibay baan noqonnaa intay annaga magac iyaga ku leeyiin iyo intan kooda ku leenahay iyo inta laysku leeyahayba waa intanaan walaalaa ku nahay nimcaan dadkan ugu jecelahay khaasatan weliba laysu kaayo tiriya aadka u saaxiibkaa labadayadu ayaan nahay walaalkayow aad baan kuugu hambalyaynayaa horumarkaaga aad baan kuugu hambalyaynayaa tallaabooyinkaaga quruxda badan ee nolosha ka gaadhay shalay aabba maad ahayn maanta aabbaad tahay shalay nin yaroo dhallinyaraadaad ahayd maanta ninkaa odaygaadaad tahay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta kulanno adoo darajadii aad joogtay mid ka sarrayso ka fiican joogta aniga aad bay weliba wallaahi farxad aada ayay ii tahay jacaylkii qabiyoobay muu qabiyoobay dhanka uu ka dhammaystiray jacaylkuu kaa qabiyoobay bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan halkan u taagannahay inaan soo dhoweyno si qurux badan gacmo furan iyo qalbi furanba fanaanka nimcaan hilaac oo aad wada garanaysaan runtii waxaa u jooga madax fanaaniin iyo shacab fara badan waxay leeyihiin ku soo dhawow Stockholm sharafay noo tahay waana ku faraxsanahay nimcaan waxaan kugu soo dhaweynaa Stockholm xadiyaad u mahadsantahay السلام عليكم دمان si guud iyo si gaar ayaan idin wada salaamayaa ummadda reer Sweden qaasatan reer Stockholm walaalkeen fanaankeenna nimcaan waan soo dhaweynaynaa annagoo si garba siman u soo wada dhaweynaynaa waxaan leenahay nimcaan ku soo dhawow Stockholm هذا ما سنتين دمانتين walaalkeen nimcaan hilaac ayaa maanta soo dhaweynayna annagoo ah reer Sweden soo dhawaa walaalkeen nimcaan anigu de fursad baan u haystay inaan nimcaan hadda tourkan aan kula jiro Yurub oo magaalo kasta tagno nimcaan walaal once again ku soo dhawow Stockholm meeshan waa showga qarniga taa annaka kugu ballan qaaday annagoo isku duubnan marka anaan u kala axan magaalooyinka kale de meeshii aan ka soo barbaaray ku soo baxay xagga waa Sweden marka of course gacmo furan ku soo dhawow walaalo taariikh waan ka dhigaysaa once again Europe ما شاء الله marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhamaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha khaasatan wadnankani aan maanta martidoonahay waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inay soo dhaweeyaan dad qiimo badan aan jeclahay aniga qaaligo ah ruuxantii soo dhaweyntiin waa mid aan si gaar ah xusi doono qalbigeygana ku taala waxa dhinacayga jooga Jeylaani bidixdan waxa jooga Maxamed Xasan Xuseen Lafoole oo aad iyo aad aan u jeclahay ahna banaan aan ku daydo oo badan dadku waxa weeye waskay ogyihiin waxaan rajaynayaa inaanu bandhigan iyo waqti fiican iyo waayo fiican wada qaadan doono marka labaad waxaan fariin kale u diray reer Sweden oo maanta martuunahay runtii waxaan rajaynayaa toddobaadka bisha inay wax noo qabsoomaan bandhig qurux badan hadii la helaa qiimo badan wadamadii aan soo marnay runtii way tartamayeen laakiin waxaan rajaynayaa inay tani ka sii badiso hadii ilaahay ra wada joognaa aad iyo aad badin celinaysa dhaweynta bismillaahi raxmaan raxiim maanta waxaan halkan u taagannahay inaan soo dhaweyno si qurux badan gacmo furan iyo qalbi furanba fanaanka nimcaan hilaac oo aad wada garanaysaan runtii waxaa u jooga madax fanaaniin iyo shacab fara badan waxay leeyihiin ku soo dhawow Stockholm sharafay noo tahay waana ku faraxsanahay nimcaan waxaan kugu soo dhaweynaa Stockholm xadiyaad u mahadsantahay السلام عليكم دمان si guud iyo si gaar ayaan idin wada salaamayaa ummadda reer Sweden qaasatan reer Stockholm walaalkeen fanaankeenna nimcaan waan soo dhaweynaynaa annagoo si garba siman u soo wada dhaweynaynaa waxaan leenahay nimcaan ku soo dhawow Stockholm هذا ما سنتين دمانتين walaalkeen nimcaan hilaac ayaa maanta soo dhaweynayna annagoo ah reer Sweden soo dhawaa walaalkeen nimcaan anigu de fursad baan u haystay inaan nimcaan hadda tourkan aan kula jiro Yurub oo magaalo kasta tagno nimcaan walaal once again ku soo dhawow Stockholm meeshan waa showga qarniga taa annaka kugu ballan qaaday annagoo isku duubnan marka anaan u kala axan magaalooyinka kale de meeshii aan ka soo barbaaray ku soo baxay xagga waa Sweden marka of course gacmo furan ku soo dhawow walaalo taariikh waan ka dhigaysaa once again Europe
maasha Allah marka hore waxaan halkan aad iyo aad uga salaamayaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed ee ku dhaqan qurbaha khaasatan waddankani aan maanta martidoonahay waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay inay soo dhaweeyaan dad qiimo badan aan jeclahay aniga qaaliga ah ruuxantii soo dhaweyntiin waa mid aan si gaar ah xusi doono qalbigeygana ku taala wax dhinacayga jooga Jaylaani bidixdan waxa jooga Maxamed Xasan Xuseen Lafoole oo aad iyo aad aan jeclahay ahna banaan aan ku daydo oo badan dadku waxa weeye waskay ogyihiin waxaan rajaynayaa inaanu bandhigan iyo waqti fiican iyo waayo fiican wada qaadan doono marka labaad waxaan fariin kale u diray reer Sweden oo maanta martuunahay runtii waxaan rajaynayaa toddobaadka bisha inay wax noo qabsoomaan bandhig qurux badan hadii la helaa qiimo badan waddamadii aan soo marnay runtii way tartamayeen laakiin waxaan rajaynayaa inay tani ka sii badiso hadii ilaahay wada joognaa aad iyo aad badan ka celinaysa dhaweyntiina